بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى waxaan maanta bilaabanaynaa sidoo kale as'ilooyin ku saabsan ciida. waxaan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala salaada ciida, sida loo dukanayo maalinta ciida, waxyaabaha sunnooyinka ah ee qofka muslimka loo baahan yahay inuu la yimaado. waxaana u qaadan doonaa insha allahu tacaala sidii aan usoo qaadanay casharadii ku saabsanaa ee ramadaanka iyo sakaatulfitriga oo ah hab su-aal iyo jawaab, si markaasi qofka uu u fahmo asilooyinka axkaamta ku sugan mas'alo walba, su-aasha uu ka weydiin lahaana uu ogaado. sidoo kale qofka daalibu cilmigana mas'alo walba adilooyinkeeda iyo culimada aqwaalkooda inuu fahmo. aqulu mustaciina billah. السؤال الأول، su-aasha koowaad, waa maxay macnaha ciid? ciid maxaa la yidhaahdaa? aljawaab, jawaabtu waxay tahay ciidda luqad ahaan waxaa loo yaqaanaa maalin dadka ay kulmaan oo ay xaflad samaystaan, ama maalin dadka ay xusaan oo iskugu yimaadaan iyagoo xusaya xaaditho dhacday, sawaa ha noqdeen xaaditho oo mu'lima ah oo ay ka murugoonayaan ama xaaditho farxad ah. waxaana inta badan ciidda la yidhaahdaa waxyaabaha dadka iskugu yimaadaan maalin farxad iyagoo muujinaya maalintaasi oo ku tacalluqdo maalin xaaditho weyn dadka agtooda ka ah, ama maalin diin ku tacalluqa. arrintaasi waxaa daliil u ah aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu xuso fi suurati almaa'ida. qaala tacaala: qaala ciisa bnu maryam allaahuma rabbana anzil calayna maa'idatan min alsamaa'i takunu lana ciidan liawalina wa aakhirina wa aayatan minka. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi markii xawaariyinta ay weydiiyeen nabiyullaahi ciisa in rabbi subxaanahu wa tacaala samada uu uga soo dejiyo maa-ida oo cunto saaran, macnaha miis cunto lagu diyaariyey, inuu alla samada uga soo dejiyo, taasay weydiisteen. waa dadkii reer banu israa'iil ee nabiyullaahi ciisa calayhi salaam raacay. markaa nebi ciise wuxuu ku yidhi ilaahay ka baqa, haddii aad tihiin dad mu'miniina maxay tahay waxaad weydiinaysaan? markaa waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan cunno iyo inay calaamad noo noqoto oo iimaankeena uu ku adkaado. markaasuu nebi ciise wuxuu yidhi siduu alla noogu sheegay: qaala ciisa bnu maryama allaahuma rabbana, rabbigeeniyu anzil calaynaa, nagu soo deji maa'idatan min asamaa'i, maa-ido oo cunto ah samada nooga soo deji, takuunu lanaa ciidan, ciid ayay noo ahaanaysaa. micnaha waxay noo noqonaysaa calaamad oo aan kugu weyneyno, maalin aan kugu weyneyno oo farxad noo ah. liawalina wa aakhirina, awalkeena iyo aakhirkeenaba aayad ayay u noqonaysaa, micnaha maalin ay ciidaan ayay u noqonaysaa. idan maalintaa ayuu nebi ciise calayhi salaam ku tilmaamay inay ciid u noqonayso haddii maa-idadaasi loo soo dejiyo. meeshaasi waxaa laga fahmayaa marka maalin walba dadka ay weyneeyaan oo ay farxad muujiyaan ayaa ciid la yidhaahdaa. amaa min naaxiyati sharci, sharciga islaamka ciid wuxuu u yaqaanaa ciidulfitri iyo ciiduladxaa kaliya. wixii ka soo haray ciid lama yidhaahdo, mashruucna ma aha in la ciido. waxaa daliil u ah xadiidka anas ibn malik radia allahu canhu. anas wuxuu yidhi qadima الnabiyu salى اllahu calayhi wasalama almadiina.
nebiga ayaa wuxuu yimid magaalada madiina walahum yowmaani yalcabuuna fiihimaa iyagoo leh 2 maalin oo ay ku ciyaaraan oo ay farxad muujiyaan markaasuu faqaala wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam maa haadaani alyowmaan 2 maalin maxay yihiin qaaluu waxay yidhaahdeen kunnaa nalcabu fiihimaa fi ljaahiliya waqtiga jaahiliyada ayaan ciyaari jirnay 2 maalin oo aan farxadaynu ahayd markaasuu faqaala nabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam qad abdalakum allahu bihimaa khayra minhumaa allah wuxuu idinkugu bedelay 2daasi maalin khayra minhumaa 2 maalin ka khayr badan markaasuu yihi yowma aladxaa wa yowma alfitri maalinta ciidul adxaa iyo maalinta ciidulfitriga idan 2daasi maalin ayuu allah subxaanahu watacaala dadka muslimiinta ugu bedelay ciid walba ay leeyihiin lidaalika ciid aan ahayn 2daasi ciidood lama sharciyenin dadka muslimiinta inay ciidaan xadiidkaasi waa xadiid imaamu abu daauud imaamu nasaa-i imaamu axmed ay soo saareen waxaa saxiixiyey xaafid ibn xajar alcasqalaani wakadalika imaamu albagawi wakadalika ibn lmulaqin waxaa saxiixiyey sheekh albani iyo shucayb alarnabuud xadiidku waa xadiid saxiix ah idan ciid waxaa la yidhahdaa ciid ulfitri iyo ciid uladxaa su-aasha labaad waa maxay xikmadda ku jirta in ciidulfitri iyo ciidul adxaa la ciido aljawaab jawaabtu waxay tahay horeyna waan uga soo hadalnay qofka muslimka ah had iyo jeer wixii sharciga ku yimaado waxaa loo baahan yahay inuu qaato maalmuhu ilaahay noogu talagalay in la ciido maalintaas waa in la ciidaa wixiina loo sharciyay waa inuu qofka muslimka sidaasuu ku qaataa haddana xikmadda ku jirta waxay culammada yidhaahdeen maalinta ciidulfitriga micnaha dadka muslimiinta waxay guteen cibaado aada u weyn cibaado oo rukn min arkaan alislaam ah ayay guteen waa siyaamu ramadaan bisha ramadaan oo la soomo waa tiir ka mida tiirarka islaamka cibaadadaasi weyn ayay guteen sidoo kale bishii ramadaan wuxuu rasuulka noo sheegay calayhi salaatu wassalaam inuu rabbi subxaanahu watacaala uu xureynayo in badan addoommadiisa naarta uu ka xureynayo marka cibaadadaasi ay guteen iyo fadligaasi ilaahay u ballan qaaday oo ay bishaasi ka rajeeyeen alla xaggiisa maalinta ka dambeysa farxadda ay farxaan ayaa ciidulfitri la yidhaahdaa macnaha waa maalinta ay fureen bisha u dhammaatay shukran lilaahi subxaanahu caza wajal sidoo kale ciidul adxaa dadka muslimiinta waa markay gutaan maalinta ugu weyn ee yowmulxaji alakbar ah waa markii ay carafo istaagaan maalintaasi rasuulku uu noo sheegay sidoo kale waa maalin ilaahay subxaanahu watacaala in badan addoommadiisa ka mida uu naarta ka xureynayo sidoo kale maalintaasi carafo ay istaageen oo fadligaasi iyo ballanqaadkaasi ilaahay subxaanahu watacaala ay xaggiisa ka rajeynayaan bacdigeedii ayay ciidayaan waa maalinta 10aad ee bisha dilxija sidoo kale waa maalin ay gudanayaan rukni ka mida arkaanta islaamka oo ah xaj ilbeyt beytka alla oo la xajiyo waa rukni ka mida arkaanta islaamka gudashada ay cibaadadaasi gudanayaan bacdigeeda ayay ciidayaan marka intaba waa shukrin ilaahay lagu shukrinayo iyo farxad ay muujinayaan dadka muslimiinta sidaasaa loo yiri marka ciidulfitri iyo ciidul adxaa waxaa intaasi ka weyn waa sharci ilaahay uu noo sharciyeeyey oo dadka muslimiinta loo baahan yahay inay muujiyaan shacaa'irta islaamka ay muujiyaan 2daasi maalin su-aasha saddexaad
salaada ciidda in la dukado maalintaasi ciidulfitri iyo ciidul adxa salaad ciid in la dukado waa maxay xukunka ku sugan salaada la dukanayo? aljawaab, jawaabtu waxay tahay culimmadu waa isku khilaafeen. qaar waxay yidhaahdeen waa waajib oo qof walba muslim laga rabo salaada ciidda inuu dukado. qaarna waxay yidhaahdeen waa sunna mu'akada. xanafiyada waxay qabaan iyo qaar ka mida maalikiyada iyo riwaayo laga soo guuriyey imaamu axmed, wakadalika waxaa qaba shaykhulislaam ibnu taymiya, wakadalika waxaa ku raacay ibnulqayim, waxaa qaba imaamu sancaani, waxaa qaba imaamu shawkani, sidoo kale waxaa ku raacay sheekh ibnu baas, sheekh ibnu cuthaymiin. dhammaantooda waxay yidhaahdeen salaada ciidda la dukanayo waa waajib qof walba laga rabo inuu la yimaado. waxayna usoo daliishadeen aayadda alla uu yiri subxaanahu wa tacaala, fasalli lirabbika wanxar, rabbigaaga u duko una gowrac. salaada waxay yidhaahdeen fasalli lirabbika waa salaat alciid, wanxar waa gowraca la gowracayo udxiyada. waxay kaloo usoo daliishadeen xadiidka muttafaqa ah ee umu catiya ay warinayso radia allahu canha. waxay tiri umu catiya, umirnaa waxaana la amray an nukhrija alxuyada yowma alciidayni, gabdhaha dhiigga xaydka u jooga inaan guryaha kasoo saarno labada ciidood. fayashhadna jamaacata almuslimiina wa dacwatahum, inay soo xaadiraan dadka muslimiinta kulanka ay kulmayaan maalintaas salaada ay u kulmayaan inay soo xaadiraan. wayactazilu alxuyadu, haweenka dhiigga xaydka joogo ictizaal bay ka sameynayaan can musallaahunna, meesha ay muslimiinta ku dukanayaan. markaasaa qaalat imra'atun, haweeney ayaa waxay tiri, yaa rasuul allah, ixdaana laysa lahaa jilbaab, mideena jilbaab ma haysato, maxay sameynaysaa? qaala wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam, litulbisahaa saaxibatuhaa min jilbaabihaa, yacni ha labisato saaxiibteeda jilbaabka ay qabto, macnaha ha ka caariyeysato, ha ka qaadato saaxiibadeeda, ha tiraahdo bidda laba jilbaab qabta, jilbaabkaaga isii, micnaha yaan laga baaqanin. umu catiya marka xadiidkaasi muttafaqa ah waxay tiri waxaana la amray haweenka dhiigga xaydka jooga inaan soo saarno xataa wadawaati alkhuduuri, iyo kuwa dahmanka qolqolka loo sameeyay gabdhaha yaryar oon guryaha kasoo bixi jirin, waxaa la amray in lasoo saaro. amarkaasi marka waxay yidhaahdeen culimadaasi waa lilwujuub, waa waajib ahaan. waxaa kaloo tilmaamaya yidhaahdeen haweeneydii markay weydiisay jilbaab midaan haysan maxay sameynaysaa, nebigu wuxuu amray inay saaxiibadeeda ka qaadato. marka waa laysku adkay yidhaahdeen waa waajib. qaar kalena waxay yidhaahdeen waa sunna mu'akada, waana madhabka ay qabaan maalikiyada iyo shaaficiyada oo mashhuurka ah. wakadalika waxaa qaba qool ka mida xanafiyada, riwaayo laga soo guuriyey imaamu axmed. macnaha jumhuurka fuqahada waxay qabaan inay tahay sunna mu'akad ah, waana in badan qoolka ay yidhaahdeen culimada salafka hore. waxay usoo daliishadeen xadiidka muttafaqa ah ee talxa ibnu cubaydillah uu warinayo. ninbaa rasuulka u yimid, markaas wuxuu yiri islaamkuu ka weydiiyey, su-aalahu weydiiyey waxaa ka mid ahaa, wuxuu yiri maxaa layga rabaa? nebigu wuxuu yidhi 5 salawaatin fi lyowmi walleyla, habeenii maalin waxaa lagaa rabaa 5 salaad inaad dukatid. markaasuu ninkii wuxuu yidhi hal calaya gayruhaa, 5 salaadood maahe wax kale miyaa layga rabaa? qaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wassalaam, laa ilaa an tatawaca, ilaa sunno inaad dukatid maahe, wax kaloo lagaa rabo ma laha. waxay yidhaahdeen marka rasuulka xadiidkaasi kuma xusin salaada ciidda. waxay kale usoo daliishadeen xadiidka cabdullahi ibnu cabaas uu warinayo ee rasuulku uu diray mucaad ibnu jabal radia allahu canhu yeman uu u diray. waxyaabuhu rasuulka kula dardaarmay waxaa ka mid ahaa, wuxuu yidhi
waxaad u sheegtaa oo bartaa ana allaha qad iftarada calayhim 5 salawaatin alla inuu ku fardi yeelay 5 salaadood fii kulli yawmin wa layla maalin iyo habeen walba waxaa laga rabaa 5 salaad inay dukadaan waxay yiraahdeen marka salaada ciidda lama xusin xadiidkaasna waa xadiid muttafaq ah marka sidaasay culimadu isu khilaafeen qaarna waxay yiraahdeen waa waajib qaarna waxay yiraahdeen waa sunno laakiin sunno la isku adkeeyay qolkee marka raajix ah culimada waxay yiraahdaan waxa raajix ah qolka tilmaamay inuu waajib yahay sababtoo ah labada xadiid ay soo daliishadeen jumhuurka fuqahada xadiidkii Abdullah ibn Abbas iyo xadiidka Talha waxay tilmaamayaan habeen iyo maalin qofka cibaadada laga rabo salaada ayuu rasuulka tilmaamay laakiin ciidaha waa mawaasim khaas ah sida maalinta jumcaha salaada khudbada jumcaha waajib u yahay salaada jumcaha in la dukado waa waajib taas culimada khilaafka ma taagna haddana xadiidka rasuulka kuma xusin laana waa mawsim gaar ah oo jumca ka jumca la dukanayo sidoo kale nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo khulafada lagama soo guurinin inay mar ay ka tageen salaada ciida marka maadaama rasuulka calayhi salaatu wassalaam iyo khulafada ayna ka tageen salaada ciida haddana ay tahay shacaa'ir ka mid ah shacaa'irta islaamka in la muujiyana mararka qaar waa waajib sida adaanka oo kale waa min shacaa'ir alislaam salaadaha ciidahana waa la mid marka qolka oranayo waa waajib ay culimada rajaxaan almuhim qofka inuu ka taga ma aha salaadaha ciida waa inuu dukadaa haddii uusan tagi karin musallaha wuxuu ku dukanayaa gurigiisa sida hadda xaaladda lagu jiro kale masaajid la xiray aan dadka isku imaan karin musallaha marka qofku muxuu sameynayaa gurigiisa ku dukanayaa isaga iyo ahli beedkiisa isaga jamaaca ahaan u dukanayaan su'aasha afraad salaada ciid halkee lagu dukanayaa الجواب جوابته waxay tahay waxa mustahab ah oo sunno ah in lagu dukado meel banaan oo barxad oo magaalada ka baxsan si ay dadkoo dhan iskugu yimaadaan laana maalintaas rasuulku wuxuu amray xataa gabdhaha xataa haweenka dhiiga xaydku u jooga dhammaan inay musallaha isku yimaadaan haddii masjidka la yiraahdo masjidka ma qaadayo sidaa darteeda ayaa rasuulka calayhi salaatu wassalaam wuxuu sharciyay in la isugu yimaado meel barxad weyn musalla ayaa la yiraahdaa haddii masjidka la isugu yimaado lagu dukado culimadu waxay yiraahdeen way ansaxaysaa wax dhib ma laha qolkaasina waxa qaba jumhuurul fuqaha xanafiyada maalikiyada xanaabisha ayaa qaba iyo qol kamida shaafiiciyada qaar kamida waxay u soo daliishadeen حديث عبد الله بن عمر ورنا رضي الله عنهما قال وحيري كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى نبي وحو بحجري مصلها ومصليه أن هذا كهذين برحد وين والعنزة بين يديه تحمل أشيسي عن الزدأ أو وكد يجري النبي عليه الصلاة والسلام مركو صلاة الدكان السترة وكد يجري والله قاضي هرتيسي markaas tunsabu bil musalla bayna yadayhi musallaha marka la tago meesha ku dukanayo hortiisa loogu surayo ushaasi fayusalli biha ilayha markaas salaada u dukanay macnaha ayadu ku dukanay sutra inuu ka dhigto xadiidku waa muttafaq idan Abdullah ibn Umar wuxuu yiri rasuulka calayhi salaatu wassalaam kaana yaghdu ila al musalla musallaha ayuu tagi jiray labada ciidood sidoo kale Abu Sa'id al-Khudri waxa laga wariyay xadiis muttafaq Bukhari Muslim ay soo saareen qaala wuxuu yiri kaana nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakhruju yawm al-fitr wal-adha ila al-musalla nabiga Eid al-Adha Eid al-Fitr wuxuu tagi jiray musallaha idan waxa sunna ah musallaha in lagu dukado su'aasha shanaad salaada ciida labada ciidood أذان إقامة مليهين الجواب جوابته حيتاي لا
lama sharciyeynin in la aadaamo wala aqimaad. maxaa la sameynayaa? imaamka markuu yimaado hore ayuu salaada ka galayaa. mashruuc xataa ma aha in la yidhaahdo salaata jaamica in la yidhaahdo mashruuc ma aha. imaamkuu imaanaya salaada hore laga galayaa. qowlkaasina waxaa qaba madhabka xanafiyada iyo maalikiyada iyo riwaayo laga soo guuriyey imaamu axmed, waana qowl u ayida shaykhu lislaam ibnu taymiya wakadalika ibnu lqayim. waxaa qaba imaamu sancaani raximahum ullah jamiican. waxayna usoo deliishadeen xadiid laga wariyey cabdullahi ibni cabaas iyo jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhum. waxay yidhaahdeen cabdullahi ibni cabaas iyo jaabirba lam yakun yu-adan yowma alfitri, maalinta yowma alfitri ciidulfitriga lama aadaami jirin, walaa yowma aladxaa, xataa maalinta adxadan lama aadaami jirin. ibnu jurayj ayaa ka wariyey, wuxuu yidhi cataa ayaan weydiiyey, markaas wuxuu ii sheegay jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma inuu yidhi salaadaha ciidda laa adaana, adaan ma laha, laa adaana lisalaati yowma alfitri xataa yakhruj alimaam, ilaa imaamkuu ka soo baxo lama aadaamayo. walaa bacdamaa yakhruj, markuu soo baxa kadibna lama aadaamayo. walaa iqaamata, mana la aqimayo buu yidhi. walaa nidaaa, walaa shay, mana la yskugu yeeraayo. salaatul jaamica iyo salaadiyan dukanaynaa iyo waxaasoo dhan laguma dhawaaqayo. imaamka cala tuul ayuu imaanayaa, salaada hore ka galayaa. xadiidkaasina waa xadiid muttafaqa, bukhaari muslim ay soo saareen. su-aasha 7, salaada ciidda imise takbiir ayaa la takbiirsanayaa? halkaasaan ku gaabsanaynaa. hada wallahu aclam, wasala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin.